دارتين وحدو دارتين نفتين إن هذا هرتان نفتين إن هذا هبيسان دبعت بدن ومرتان ديجا وداديسان إن الدفاع ذان دلكين هدوية هي عدو شيء عدو سكين لبضبا هديت هاي حدودها هديت هاي عركة يبضبا وحدو مرتين دار وحلو باهي هي دار تاسينات كدبيسان وانا تراهدين hadalkiinu waxa ku jiray waxa la diinta baray marka laga tago waajibaadkan ciidan wadaniyadu waxa weeye waa farqiga u dhaxeeya wadan dhisan oo dhaqaaqay oo horumar leh iyo wadan burburay oo qabiil uu yahay aasaas markaad halkan isteelada ku xirateen ama calanka Soomaaliyeed garabka ku xiran yahay markaas aad ka baxdeen magacaaga shakhsiga ah iyo hadii aad lahaan jirtay qabiil labadaba waxaad u gudubtay qaran waxaad difaacaysaa qaran waxaad ku difaaci kartaa qaran wadaniya kartaa iyo dawladnimo wax ka hooseeya waxa weeye waa burbur iyo inaad ka hooseyso wadamada alla tartamayso ama alla tartamayno waxa tihiin hogaankii ciidanka tihiin saraakiil xigeenada iyo saraakiish waxa weeye marka la leeyahay askari ma xumaade waxa xumaada sarkaalka macnaheedu sarkaalku waa inuu yahay tusaale wanaagsan uu haday tahay akhlaaq haday tahay discipline haday tahay wadaniyad haday tahay aqoon in looga daydo haddii aad xumaataan askarigu eed ma laha sarkaalka iskale marka inaad tusaale fiican u noqotaan astaan qaran noqotaan oo aad matalaysaan dawladdiina kaliya ma ahayd aad matalaysaan qarankiina mar walba inaan xasuusnaano dadkii shahiiday oo u dhintay dalkan hadday tahay xoreyntiisa hadday tahay difaaciisa ciidan waxa weeye waxa uu qortaa ciidan mar walba waa yiraahdaa ma aha shaqo qof soo doontay oo mushaar ka qaata ma aha naftiina aad u hibayseen waxaad u taagantihiin inaad dhimataan mar walba inaan xasuusnaano dadka naga baxa oo shahiida iyagoo difaacaya dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inaan u duceyno oo aan quraanka u akhrino mar walbaba waxaan idin rajeynayaa guul waxaan idin rajeynayaa horumar